بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن ساوى لكم الشيء موضوع حكو سابسيسي الأخلاق أخلاق ضو ودقن laga rabo qofka bini aadamka inuu ku dhaqmo waxba tilmaami mayno tacaabiirta luqawiga ama istilaaxiga ee lagu fasiro laakiin waxaynu ku soo koobaynaa warka uu raagib al-isfahani ku tilmaamayo alkhalq walkhuluq marka uu tilmaamayo midna waa qofka hay-adiisan guud iyo muuqaalkiisa sare midna waa muuqaalkiisa qarsoon ee dhabta ah ee qofka shakhsiyadiisa aadamnimo ka tarjuma markaynu nimaadno islaamnimada akhlaaqdu waa dhaqan uu qofku kula dhaqmo rabbigii subxaanahu wa tacaala waa dhaqan uu qofka bini aadamka kula dhaqmo naftiisa waa dhaqan uu qofka bini aadamka kula dhaqmo maca alaakhar cidda kale bini aadam ha noqoto environment ha noqoto jiritaanka oo dhan idan akhlaaqdu meel aanay gelini ma jirto dhaqanka iyo aadaabta iyo hufnaantu ilaahay baad kula dhaqmaysaa subxaanahu wa tacaala waad addoonkiisii tahay waxaad kula dhaqmaysaa bini aadamka kale waxaad ku dhaqmaysaa noolaha kale marka aad la dhaqmayso nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isna waxa uu tilmaamayaa inamaa bucistu liutamima saalixa alakhlaaq waxaa lai soo bixiyey buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ama waxaa lai soo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda keeda fiican waa dhammaystir laakiin aadanuhu intuu soo noolaa ama rusul la soo dirayey bini aadamka akhlaaqdaasaa la farayay weecweecad baa bini aadamka ku dhacaya ama akhlaaqda meelo ka mid oo dunta rusushu markaa dhulka ay dhammaystirayso ama se ay awdaysa bay ka mid ahayd saa awgeed dee waxaynu naqaanaaba xataa culuumi alfalsafa ethics and moral values waa marka la qaybqaybiyo falsafadda 4 qaybood ama 3 qaybood ba ugu weyn 3 qaybood oo ugu waaweyn waa qayb ka mid ah marka metaphysics laga yimaado iyo epistemology waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo jiritaanka ku saabsiisan iyo waxyaabaha aqoonta iyo sida loo baadho ku saabsiisan qaybta saddexaad waa ethicska ama waa moral valueska ama waxa loo yaqaano alkhayr washar maxaa wanaaga maxaa xuma ah waa mas'ala falsafiya culamaa alfalasafa kulluhum ay ka warrami jireen sida awgeed waxaynu leenahay aadanuhu intuu soo jirayba akhlaaqda wuu ka warramayay nebiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa waxaa la ii soo bixiyey inaan dhammaystiro makaarim alakhlaaq aw saalix alakhlaaq akhlaaqda keeda fiican ama keeda quruxda badan leh waxaanu ku ducaysanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilow sidaad muuqaalkayga u fiicnaysiisay dhaqankaygana u fiicnaysiiya ama akhlaaqdayda allahuma kama axsanta khalqi fa axsin khuluqi haddaba waxaynu isku dayaynaa si kooban maadaama wakhtigu uu kooban yahay inaynu si kooban u soo bandhigno akhlaaqdu waa waxay ahmiyad weyn siiyaan umamka dhammaanteed iyo jamaacaadka iyo afraad iyo cid waliba waxaa la yidhahdaa waa tiirarka ugu waaweyn ee aadamaha dhismihiisa uu ku taagan yahay ama noloshiisa xukuma sidaa awgeed intaynaan islaamnimadaba ka warramayn xataa thaqaafa almucaasira dunida maanta aynu ku nool lahay مثلا embigu wuxuu ka warramaya waddanka kan iyo distoorka u yaalla dasaatiirta caalamkee maanta la sheego waxay dhahaan 3 qodob unbay ka warantaa yani distoor الثقافة العامة dasaatiirtu ay ka warantaa waa 3 shay mid waxa la yidhaahdaa waa xifdu الqiyam ama valueska bulshadu ay leedahay waaweyn ee aan gelin loolanka siyaasadeed in lagu ilaaliyo مثلا cadaalad أمانة شورى الحرية وvalues waaweyn oo la rabo distoor kastaaba inuu hoos harsado ma gashabaa la yidhaahdaa tanafuska siyaasiga ah yacni maalan ummadda lama odhanayo majority-ga waxay isku raaceen dadka badh in la gumaado cadaaladda laga qaado suurtagal maaha
laa dastuur walaa wax fasixi karaa ma jiro marka waxay dhahaan marka dastuur la qorayo saddexda qodob ugu waaweyn mid waa akhlaaq waa values waa morals waa dadku waxyaabaha waaweyn ee dhaqanka la rabo inay ilaaliyaan ka labaadna waxa la yiraahdaa waxay xadidaa dastuurku huwiyat dawla dawladdaasi ama ummadaasi dhaqankeeda siyaasadeed iyo diimeed iyo wuxuu noqonayo oo idinkan maqla waa dawlad dimuqraadiya waa dawlad republica waa dawlad boqortooyo waa dawlad boqortooyo dastuuriya waa dawlad kana waa idinkan ku arka hadiyo goor dasaatiirta dawladda diinteedu waa nooca afkeedu waa nooca deebaajada noocaasa waxa la yiraahdaa huwiyatu dawla dadka kani identity-gay sheeganayaan baa lagu qoraa qodobka saddexaad ee markaa dastuurka wuxuu ka waramaa waxay u tilmaamaan xidhiidhka u dhaxeeya xaakimka iyo maxkuumka iyo xidhiidhka ka dhaxaynaya furuuci sulta qaybaha dawladnimo waxaan uga dan leeyahay markaa inaan idhaahdaa akhlaaqdu waa qodobka koowaad ee dastuuriga ah ee umamku markay dastuur qorayaan ay ka waramaan isla markaana dastuurku waa qadiya nadariya laakiin si waxaa loo hirgeliyo wasaarad dhan bay ummaddu u samaysataa ummad waliba la yidhaha wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta wasaaradda waxbarashada waa ka John Dewey waa culimadii ugu waaweyn ee tarbiyada ka warantay Mareykan ahaa waa ku tilmaamaya an-numuw al-akhlaaqi buu leeyahay ama koritaanka akhlaaqdu waa dantiya hadafka laga leeyahay camalka madrasiga buu leeyahay schooling system kaba higher education ka waxbarasho ah ama waxaan ka hooseeya waa qofka bini aadamka in la baro siduu bulshada ula noolaan lahaa siduu environmentka ula noolaan lahaa siduu sultada ula noolaan lahaa siduu wax u qori lahaa wax u akhriyi lahaa idan dugsi hoose dhexe ilaa secondary waxa uu qabtaaye ugu weyni waa qofka in morals loo yeelo qofku inuu dhaqan iyo akhlaaq iyo adab inuu yeesho waa camalka madrasiga ugu weyn sida ogeed baa wadannada qaarkood muallimka waxay u arkaan inuu waxa ugu qiimo badan yahay wadannada qaarkood baa wasiirada dhaqaale ku dhow siiya ninka macallinka ah yiraahda darajada macallinku elementary schoolka wadannada qaarkood qof master degree ka yari ma dhigo مثلا فنلندا oo kale waa inaad master degree haysataa haddaad rabto elementary school inaad macallin ka noqonayso waayo waxay yiraahdaan waa muhandisul insaan waa human engineer bay yiraahdaan waa bini aadamka qofkii la rabay inuu habeeyo oo qaabeeyo jiritaankiisa ka waramo waa ka qaalisan yahay bay yiraahdaan macallinku maalka uu wadanku haysto iyo dhismayaasha uu ka qaalisan yahay waayo wadan hanti uu leeyahay waxa ugu weyn dadkiisa qofka markaa dadkiisa dadnimadooda ilaalinaya dhisaya wuu ka qiimo badan yahay qofka daara dhisaya iyo wixii la mid ah ولذلك وشعارات عربادين بدن قبيا وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فاقم عليهم مأتمن وعويلا شوقي قبيقي سيدارا يكون الرمي أخلاق ده أنا مركا أخلاق ده جودهان ووحا قفك بني آدم كأح حولها كالصوعة حوله باهيه دي حاجيات كوده وحي أقول تنبال هذا غريزة سعادة لكن بني آدمكو ماها بني آدمكو وحا للربا سي أخلاقي كتشرته إنو باهدي سيوقته هداي باهدي سعنتهاي هداي باهدي قبردي يعني نسو باهيين تاي وحا كسبهاتو وحا هرايا دمانتد نظام أخلاقية هدف كمركا قفك مسلم كأخلاق ده وكليه كو وإنو إلهي الرالي قليه ما هدف كقفك مسلم كإنو رقم وندا أمانكو هلا أمانت ونوع من الرياء ده أمان رادس تهي ونوع من النفاق ما ها أخلاق الإسلام كو يريو مناها أخلاق الإسلام جميت كسب مادي الغراديو والغيا با ودنا ده قاركو دنا درك تدتكو سفي عنو بيهيف كرينيا لكن هو economic minded وبروفيت اورينتد ودد دقال الرادينيا مثلا customer services كيا وحن لا سبيه وحن ودمي marar badan waxa loo sameeynaya waxa kan qofka jeebkiisa in la baadho laakiin islaamku waxa uu sameeynaya inuu ilaahay ajar kaga helo inuu qofka ixtiraamo bini'aadamnimadiisa ixtiraamo oo isagoo qofka qadarinayo bini'aadamnimadiisa ixtiraamaya isna uu rabo amalkan inuu ilaahay ugu dhawaado inuu waxa kan sameeyo sida awgeed waxaan leenahay akhlaaqdu waa waxa bulsho isu naxariisata iscaawisa iskaalmaysata
isjecel wada nool awlaad iyo aabba iyo carruur iyo hooyo iyo jiiraan leh isku xidha waxay dhahaan waa xabagta bulshada isu haysa haddii ay bulshadu jirto wax isu qaban karaa waxay yidhahdaan waa dhaqanka iyo akhlaaqda waxa bulshada isu sameeya sida awgeed ayaa waxay yidhahdaan humanku ama bini aadamku kamaalkiisu dhammaystirankiisu waa markay akhlaaqdiisu fiicnaata bay dhahaan bacda alcaqiida waalcibaada waa markay akhlaaqda halka ugu sarraysa uu gaadho ayuu yahay qof kamaal ilbashariya gaadhay sidee buu qofku ku noqon karaaba isweydiin leh qof dhaqan fiican maadaama ay qiimaha intan leeg diinta iyo dhaqamada bini aadamkaba akhlaaqdu ku leedahay waa maxay waddada loo mari karaa ugu horreyn waxaan leenahay akhlaaqdu qaybi waa fitri waa abuur qaybi waa abuur qaybina waa muktasab waa wax la barto oo tadriib iyo training waa wax tababar loo galo si aad naftaada u dhisho oo qurunka uga dhisho oo aad ka dhigtid qof suubanoo hagaagsan nabiga calayhi salaatu wasalaam wafdi baa u yimi nin ashaj cabdilqays la yidhaahdaa uu la socdo ninka kan wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina fiika la khaslatayni yuxibuhum allah waxaad nin yow leeday laba dhaqan oo ilaahay jeceliyey laba dhaqan oo ilaahay jeceliyey wuxuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam riwaayaadku waa kala gedisan yihiin riwaayadda muslim waxay sheegaysaa alxilmu waalanaah dulqaad iyo kaadsiinyo hubsiino waxaa tahay qof dulqaad badan oo dulqaadku qofku inaanu wax yari ihaara ku samayn inaanu kicin soomaalidu waa dad soodhaa inta badan waa dad uu aad ugu yar yahay dulqaadka iyo sabirku laakiin nebigu ninkan wuxuu ku ammaanaya inuu yahay qof deggan marka hore oo anaa leh deganaanshiya leh dulqaadna leh riwaayadda imaamu nasaa'i say sheegayso wuxuu ninkii weydiiyey shay-un jubiltu calayhi aw shay-un atakhallaqu ma wax ilaahay igu abuuray baa mise waa dhaqanaan kasbaday ma dhaqanaan yeeshay anigu iyo xirfad ku keenay baa mise waa wax ilaahay subxaana wa tacaala igu abuuray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa bal jubilta calayh maya labada tan adigu waa sajiya waa dabeeco ilaahay subxaana wa tacaala kugu abuuray idan qaybi baynu leenahay dhaqanka waa abuur oo waa ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala qaala inamaa ana rasuulu rabbiki liahaba laki ghulaaman zakiya ciise ilaahay markuu maryamo siinayey ugu bushaaraynayey malagii u yimi wuxuu leeyahay waxaa rabbaa isoo diray si aan kuugu hibeeyo ghulaaman zakiya ghulaan la tahiray wiil fadiilo oo dhan wata waxay culammadu yidhaahdaan min طabcihi bay ciise ka mid ahayd in sidana ilaahay u abuuray subxaanaه wa tacaala idan waxaynu leenahay akhlaaqiyaadka qaybi waa abuur oo dee waynu kala cadho badannay hebel qofna waxaa laga yaabaa inuu marka laba eray la yidhaahdaba kaco qofna inuu degan yahay oo uu dul qaato waa kala sabir badannay waa kala abuurkeenna hore laakiin haddana waxay leeyihin culammadu qofka bini aadamkaa inta la tababaro ayaa la gaadhsiin karaa inuu dulqaad yeesho inuu cadhadiisu degto inuu gacan furaado wax allaaliya waxaynu fadiilo u naqaano wanaag iyo dhaqan u naqaano qofka waa loo rabayn karaa bay leeyihin haddii la rabeeyo dee xayawaan baa la rabeeya ama bini aadam baan la rabayn karaynin xayawaankaa kaynta ordaya ayaa la qabtaayo inta la tababaro waxaad arki qaar shabeel tababartay ama libaax tababartay libaax iyo shabeel haddii la tababaray ma qof bini aadam oo nool baan la tababari karaynin markaa saa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo qaybta muktasabka ee bini aadamku uu hanto ka warramaya baa wuxuu yidhi inama alcilmu bitacallum wainama alxilmu bitaxallum waman yataxara alkhayra yucطah waman yatawaqa shara yuwaqah nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa daarqutni warinayo sheekh alalbaanina xasan ku tilmaamay wuxuu leeyahay cilmigu barashu ku yimaada ambiyadaa waxyigu ku soo dega mooyaane dadka inta kale waxbay barteen
waxaa khabiir la sheegayo caalim la sheegayo waa qof waqti iyo juhdi geliyey idan cilmigu barasho ku yimaadaa buu nebigu leeyahy wuxuu kaloo nebigu leeyahy dulqaadkuna dulqaad barashu isna ku yimaada oo qofka bini aadamka ahi waa la gaadhsiin karaa xad uu dul qaato laakiin wuxuu u baahan yahay ciddii riyaadada nafsiga ah tababarka iyo tadriibkaa dhabta ah siin lahayd sida jidhkaagaba loo tababaro qofka cayaartooga ah halkaa inta bannaanka loo saarabaa la baraa jidhkiisa inuu flexible noqdo inuu murqaya yeesho inuu ka noqdo qof bini aadama baa midna qaarka sare loo weynayn karaa midna qaarka hoose loo weynayn karaa waayo waa qofba sida loo tababaray kuwan feertama waa aragteen garbaha iyo tuurta iyo labada gacmood intaasaa weyn mijaha kuwaygoo kaleu leeyahy yacni maaha qof xoogan maaha sidaa awgeed waa kuwan long tenniska cayaara xataa labadiisa gacmood baa kala weyn tuu ku cayaaraa weyn ka guranna bidixdaa weyn ka midigtaana midigtaa ka weyn gacantiisa waayo tani exercise ka badan bay heshay ta kale intay helayso si awgeed qofka bini aadamkaa jidhkiisa waa la tababari karaa waxaa la mida naftiisana waa la tababari karaa sidaa jidhkiisa riyaada loogu sameeyey ayaa riyaada nafsiya loo samayn karaa oo qofka la bari karaa inuu dul qaato inuu hadal fiican ku hadlo inuu dhaqan wanaagsan yeesho inuu cadhadiisa qarsan karo inuu wax bixin karo inuu dadka ixtiraami karo inuu waayeelka tawqiirin karo waana waxa loo furtaba dee madaaristan iyo iskuulladan iyo dowladuhu waxay wasaaradka dhan u samaystay waa kan innagu waxaynu haysanaa meelaha la tago in muxuu cilmi soo bartaa la isweydiiya waxa ka fiican inaad tidhaha muxuu dhaqan barta ilmuhu muxuu isbeddel samaynaya si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay xilmigu iyo dulqaadku waa wax la barto war ninkii khayr raadiya waa la siin buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninkii shar ka dhowrsadana waa laga dhowri buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walidalik buu nebigu wuxuu tilmaamayaa xoog badnidu ma aha inaad qofka legdi karto ee xoog badnid buu nebigu yidhi waa qofka naftiisa hanta markuu cadhoodo bini aadam aan cadhooni ma jiro bini aadam aan hoosta ka guban marka erayada qaar ama waxyaaba qaar lagu sameeyaa aanay dhibini ma jirto laakiin waxaa lagu kala gedisan yahay jawaabta aad qaadanayso marka lagaa cadhaysiiyo miyaad cadhadaada xejin oo si qof miyir qabaad u hadli mise waad waalan oo waad burqan oo afkaad furan soomaalidu intuu waxuu doono dhiil iyo dherigaba jabayaa buu yidhaha waan cadhooday dee lama waasho haddaad cadhooto waxay haddaad cadhooto inaad isku daydo inaad cadhadaada kontrooli kartid inaad naftaada xejin kartid si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay xoog badnidu ma aha muuqaalkan sare iyo jidhka xooggane xoog badnidu waa qofka naftiisa kontrooli kara xejin kara nin saxaabiyaa nebiga u yimi oo wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo calayhi salaatu wasalaam ila tali awsini nebigu wuxuu ku yidhi laa taqdab ha cadhoon markaasuu faradada miraaran waa ku celceliyey ila talidii xadiidka bukhaari warinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam uma dhaafin laa taqdab markuu yidhaahda ila taliba ha cadhoon buu ku yidhi waxaa ka muuqata ninka kan inuu nin xiddo kulul ahaa nin sharaarad yaro loo kale laakiin waxaa la siinayaa daawada isaga u cuntanta nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa waxaad arki doontaa mid le ila tali oo waxu sheegayo mid kaleo wax weydiinayo oo waxu sheegayo macnaheedu maaha inay axaadiistan iskhilaafsayin macnaheedu waxa weeyaan nebigu tabiib buu ahaa calayhi salaatu wasalaam dadkan daweynaya bulsho uu yaqaanaybu wuxuu daweynayaa xanuunada ay qabaan waxa ay hayaan qof aad ku og tahay inuu sharaaro kululiyey hadduu ku yidhaahda ila tali dee talada ugu fiican in la siiya waxa weeya waa niyow deg ha cadhoon marka la leeyahay ma waxa weeyaan dhiiggaagu yuu karin oo cadhaha dareemin qof bini aadam aan cadho dareemini ma jiro qof bini aadam aan cadho dareemin marka la kiciyaa ma jiro laakiin waa maxay waxa weeyaan waa naftaada tababaroo waxaad ku tababartaa inaad gaadho walkaadimiina alghayd ilaahay qaar buu wuxuu ku tilmaamayaa kuwa af xidhaya cadhadooda kuwa kadim ku samaynaya ama xidhaya cadhadooda si awgeed ba xadiidkii inoo tilmaamaya wainama alxilmu bitaxallum dulqaadku inay wax la barto haddaba waxaynu leenahay waxa la yidhaahdaa akhlaaqdu
qaybina waa dabeecad ilaahay kugu abuuray waa kala deeqsisanay dadka badh baa ilaahay u dhaliyey inaanu adduunku qalbigoodaba degine gacantooda ay furraato laakiin haddaad qof muslim oo dhab tahay waad baran kartaa in gacantaadu furraato gacan furridu maaha markaad xoolo badan hesho inaad wax bixiso waxa yar baa wax laga bixiyaa qofka waxa yar wax ka bixin karaa waxa badanna wax ka bixin karaa waa wax la baran karo inaad xilmi yeelato waa wax la baran karo inaad dadka ixtiraamto waa wax la baran karo weliba schooling systemku iyo malcaamadaha iyo madaaristu marka aan afkaartani bislaanin innaga waxaynu dadka barraa markaa waxa weeyaan cabsi macallinku markuu soo galo yararku inay sidii jiir la qabtay iswada taagaanuun isnabaan markuu baxana inay booqaan waayo wuu baqayee muu baranin in la deganaado maad u tababarin qofkani inuu deganaanshiye heli karo maad u tababarin qofkani si xasiloon inuu socdo ee waxaad u tababartay ushaa markuu arko iyo markuu adiga ku arkaba inuu istaago markaad adigu baxdana inuu wixii doono sameeyo idan cabsidu maaha wax bini aadamka lagu tababaro bini aadamka waa la train gareeyaa si kale wax loo baraa si awgeed waxaynu leenahay akhlaaqdu wax la barto iyo wax abuuraba way leedahay ta abuurkaana waa la sii xoojin karaa meelaha aad hanjafka ka gaaban tahayna waa lagu kamili karaa ama waa lagu dheerayn karaa waxaanad ogsoonataa waxay dhahdaan culammadu iyagoo aayad qur-aana daliishanaya aadanuhu laba ceebood buu leeyahay bay yidhaahdaan ama laba cawro laba ceebood oo u baahan in la qariyo buu wada leeyahay labada saw-aba ilaahay sutra buu u sameeyey wax lagu qariyo cawra waa cawradan jidhkii aynu naqaano waxaynu ku qarinaa dharka isla markaana waynu isku qurxinnaa dharka waxaynu u xidhannahay sababo badan laakiin sababta koowaad waxa weeyaan inaad cawradaada asturto sababta labaad aynu u xidhannaana waa maxay waa inaynu isku qurxinno oo dee cawrada mara kastoo aan isku duuduubna waa qarin lahayd laakiin waxaad mid gaara u tolatay ee u soo kaakaawadaysay ee saan ugu gashay inay liziina kuu noqoto haddaba hadday jidhka sare maradu asturto cawrada hoosena akhlaaqda asturta qofku hadduu akhlaaq leeyahayna waa asturan yihi hadday akhlaaqdu kugu yartayna cawradaadaa muuqata dadka badh baa markuu waddada kaaga soo baxo aad sodhanaysa ka weeco nebigu calayhi salaatu wasalaam qaar buu wuxuu yidhi si fiican u salaam markaasay ku tidhi caaisha sawkii ninkan aad warkaa ka sheegtay bi'sa akhul cashiira buu ku yidhi markaasuu yidhi waa kuwa sharkooda lagaga nabad galo yacni dadka badh baad isku dayeysaa the minimum wakhtiga ugu yar inaad la qaadato waayo waxaad is leedahay keliya nabadgeli maysid haddaad wakhti badan la sii joogto sidaa awgeed qof kastoo inaga midi subaxii markaad toosto waad wejigaad dhaqataa afkaad cadayataa waad isnadiifisaa haddaad nin qolada sare ah tahay waad isa sii buufbuufisaa waxaasoo dhan waxaad u samaynaysaa aadamahaad u tegaysaa inaanu ama ur aan qurux badnayn kaa helin ama muuqaal fool xun le aan kugu arag waxa ka qurux badan jamaalul afcaalka in dhaqankaagu quruxu leeyahay ayaa ka qurux badan marada sare la xidho taasaa u baahan inaad dadaasho oo aad isku daydo qof waliba wuu isogaya ceebihiisa qof aan is aqooni ma jiro mostly waad isgaranaysaa meelaha aad hanjafka ka gaaban tahay haddaba waxaad u baahan tahay inta aanad cadayga iyo marada iyo cadarka iyo shaambooyada ka fekerin inaad ka fekerto qalbiga iyo saaad u daahirin lahayd saaad naftaada uga dhigi lahayd naf rabbaysan ilaahay wuxuu leeya yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari sawaatikum wariisha walibaasu taqwa dalika khayr waa reer nebi aadama waxaan idiin soo dejiyey baa ilaahay leeyahy libaasan yuwaari sawaatikum maro ama hu aa ku qarin kartaan cawradiinna
iyo wariishan baa ilaahay yidhi iyo ku la isku qurxiyo laakiin waxaa la sheego kale walibaasu taqwaa dalika khayr baa la yidhi huga taqwada huga dhaqanka iyo akhlaaqda iyo alla ka cabsiga ayaa ka khayr badan waxa kale oo dhan waxaan leenahay markaa waa laba hu oo la wada qaate yuu noqon ninkaad muhiimadda siinaysaa kan sare hooyada aabbaha ilmaha maryo fiican ma loo tolo ciiddii maro ma la siiyey innaga dhammaanteen waxaad mooddaa ka muuqaalku inuu inagu badan yahay dunidan materialistkii aynu nimina dee dadkaba jeebkiisa lacagta ku jirta ku qiimeeya iyo kursiga uu fadhiyo oo humankaba waxaa loo kala fadilaa siday jeebabka lacagta ku sitaan u kala badan yihiin laakiin lacagtu waa maadaadkan dhulka yaalla ka mid ah insaanka sayidka ah meesha tan insaannimaduna waxay ku dhammaystirantaa bacda alcaqiida waalcibaada dhaqankaa dhammaystira haayada bay yidhaahdaan markaynu ka nimaadno bacda rida allah haayada laga leeyahay akhlaaqduna waa buluuqi alkamaali albashari wasacaada taama bay yidhaahdaan waa in qofka la gaadhsiiyo aadamnimada dhammaystiran aadamnimada dhammayska tiran leh waa in qofka la gaadhsiiyo walidalik baa waxaynu tilmaamaynaa nebiyullaahi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam min dalaa'ili nubuwatihi waxaa ka mid a xusn alakhlaaq waxyaabay culammadu u deliishadaan nebinimadiisa bal qabla almucjiza dad baa ku rumeeyey dhaqankiisa daraaddeed oo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam kamaal bashariya buu lahaa qof dhaqankiisu uu dhammaystiran yahay buu ahaa qof ilaahay taskiya siiyey ilaahay nadiifiyey oo xumo badan ka nadiifiyey buu ahaa saa awgeed waxaynu leenahay gruubkii koowaad ee muslimiinta ee islaama islaamnimo nebinimadiisa waxay u deliishadeen dhaqankiisa khadiija radia allahu canha markuu qaarulxiraa ka yimi ee waxyigii u horreeyey ku soo degay isagoo kurbaysan uu yimi waxay u deliishatay nebinimadiisa iyo dhaqan wanaaggiisa kallaa wallaahi maa yukhziika allahu abadaa bay tidhi ilaahay baan ku dhaartay inaan rabbi weligaa ku hoojinaynin sababtu waa maxay innaka latasilu raxm waxaad ahayd bay leedahay mid qaraabo xidhiidhiya oo qofka culayska ka qaada oo kaan waxaysane macduumkaa wax siiya oo martida soora oo dhib oo yacni waxay sifaynaysaa dhaqankii akhlaaqeeda u lahaa akhlaaqdani bay leedahay waxay tilmaamaysaa qof alla doortay inaad tahay qof xumo ku soo socdaan ma u muuqatid bay ku tilmaamaysaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wasfiga ugu weyne uu nebiga qur-aanka ugu qoray waa wainaka la calaa khuluqin cadiim waxaad tahay mid ku sugan wainak waa jumla ismiya adawaatu tawkiid lagu bilaabay xarafka la isticmaalay waa calaa alculuw waxay yidhahdaan waxaan oo dhamme waxay tilmaamayaan baa yidhahdeen fii cilmi luga marka la eego nebi maxamed akhlaaq dhammaystiran diin dhammaystiran inuu ku sugan yahay ilahay wuxuu leeyay wainaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq dhammaystiran mid ku sugan baa tahay idan waxaynu leenahay akhlaaqdu waa min dalaa'ili nubuwaba waxyaabaha loo daliishado nebigu inuu nebi yahay bay ka mid tahay waxaa kugu filan xadiidkii bukhaari ee heraklis boqortooyadii ruum ninkii haystay abu sufyaan oo gaal ah oo aan muslim ahayn ayaa la waraystay markii waraaqdii nebigu uu diray ay u tagtay calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi cidima ka joogtaa qoomkaa oo waxaa la soo helay 6 nin dabeetana abu sufyaan baa la waraystay warkii abu sufyaan la waraystay la weydiiyey hiragal 13 ama 14 su'aalood buu weydiiyey intiiba wuu uga jawaabay waxaanay wada tilmaamayeen dhaqankiisa wuxuu heraklis leeyahay markaa fain kaana maa taquulu xaqa waxaa ii sheegteen hadday run tahay fasayamliku mawdaca qadamaya haatayn wuxuu hanan doonaa halkan aan jooga buu leeyahy waan ogaa in nebigu soo baxayo laakiin maan moodayn buu leeyahy inuu idinka mid yahay ee haddaan gaadhi karaya buu leeyahay waan isu xambaari lahaa waan isku dhibi lahaa inaan gaadho cagihiisaanan maydhi lahaa buu ku tilmaamaya waxa uu sheegay abu sufyaan waxay u badan yihiin dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii
iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u dhaqmayay biografigiisa markii looga warramay buu wuxuu ka daliishaday inuu nebi yahay heracles wuxuu ka daliishaday biografiga nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu nebi yahay abidar saxaabigii la odhan jiray markuu soo diray walaalkii uu yidhi war bal nin baa maka ka soo baxay oradii soo waraysa ninka xaalkiisa xadiiska kale bukhaari ku yaalla wuxuu leeyahay walaalkii unays waan soo socday oo waa nimi dabeetana ninkii baan dhegaystay abudar buu ku soo noqday abudar wuxuu ku yidhi war maxaad ku soo aragtay ninkii ra'aytuhu ya'muru bimakaarim alakhlaaq buu yidhi waxaan soo arkay nin dadka faraya dhaqamada kuwa ugu fiican ama u qurux badan leh nin faraya baan soo arkay saawgeed ayuha alxiba waxaan leenahay haddii nebiguba risaaladiisii calayhi salaatu wasalaam uu cinwaan uga dhigay inamaa bucistu liutamima makaarim alakhlaaq aw saalix alakhlaaq labada riwaayadood ba imaamu axmed baa warinaye hadduu uga dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam cinwaanu risaalaba inay tahay akhlaaqda inuu dhammaystiro waxa loo soo diray waxay culammadu yidhaahdaan akhlaaqduba waa saddex qodob bay sheegaan iyagoo aayad qur-aana daliishanaya waxay yidhahdaan waa badli lmacruuf wa kafi ladaa wa ixtimaali ladaa bay yidhahdaan akhlaaqiintaasay ku dhantay bay yidhahdaan waa qofkoo samaha sameeya badli lmacruuf wixii curfiga ku fiican ee macruufkee dadku wada qirayo qofkoo sameeya iyo qofkoo dhibtiisa dadka ka haysta aan isaga wax dhibi ka soo fulin iyo qofkoo dhibta dadka kale kaga timaada u dulqaato oo aan cadhoon ama markiiba boodin waxay yidhahdaan akhlaaqiintaasay ku koobantay intaana waxaa laga qaataa bay yidhaahdaan aayadda qur-aan ee ilaahay leeyahy khudi alcafwa wa'mur bilcurfi waacrid can iljaahiliin ilaahay wuxuu nabigiisa ku yidhi khudi alcafw wa'mur bilcurf waacrid can iljaahiliin cafwiga qaado dadkana samaha far jaahiliinta iyo wax magaradka waxa kaa soo gaadhana ka jeeso qurux ma laha qofkii farta kugu soo taagaba inaad shan ku taagtaa casriganna saasay u badantay wadaadkii wadaad kale eray ku yidhaahdaa isna waa inuu toban ku yidhaahdaa siyaasigii siyaasi kale eray ku yidhaahdaa isna waa inuu toban ku yidhaahdaa qabiilkii qabiil kale laba eray ka yidhaahdaa isna waa inuu shan gabay u tiriyaa waxeenoo dhami waxa weeyaan haddii midh la yidhaahdo waa in laeg inaan idhaahdo laakiin nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo rasuulah oo ilaahay waxyi ku soo dejiyey oo kamaalil akhlaaq leh ayay waxay lahaayeen waa saaxir iyo waa kadaab iyo waa kan markaasaa ilaahay leeyay waa acrid can iljaahiliin lama odhanin nimanka kule waa saaxir iska dhici iyo nimankaa kadaabka kugu sheegaya kan sheegaya ee ilaahay wuxuu ku yidhi waa acrid can iljaahiliin wax magaratada waxba ha u dhegtaagin idan dhaqanku wuxuu u baahan yahay in nafta la tababaro dhaqanku macluumaad maaha waa laga yaabaa in aqoontaadu badantay macluumaad tiro badan inay information badan inuu madaxaaga ku jiro ama mid diineed ha ahaado ama mid dunawiya ha ahaado laakiin aswa naas baad noqon kartaa haddana iyadoo informationkaagu tiro badan yahay yes informationka tirada badan leh wuu ka qayb qaadanayaa haddaad trainingkaagu fiican yahay haddii dhaqankaagu wanaagsan yahay waxaa asali markaa wuxuu yahay qofka muslimka ahi inuu yahay mid dadka khayrka gaadhsiiya kow khayru nnaasi anfacuhum ayuu nebigu tilmaamaya dadka waxa u khayr badan anfacuhum linnaas dadka ka ugu anfac badan leh waxaa kaloo nebigu tilmaamaya almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih muslimka dhabta ahi waa qofka muslimiintu ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa mid baa yidhi maxaan qabtaa markaasuu nebigu yidhi sidaa yee markaasuu yidhi haddaan kari waayana markaasuu yidhi sidaa yee markaasuu yidhi haddaan kari waayana nebigu markii dambe wuxuu ku yidhi dee dhibtaaduun dadka ka hayso haddaad wax matarannimo isku og tahay gacantaadii afkaagu ha kuu xidhnaadaan haddaad waxba kala qaban karin ummadda haddaad waxba ku kordhin karin si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya akmalu lmu'miniina axsanuhum akhlaaqa xadiidka tirmidi iyo abi daawuud الشيخ الألباني صحيح كنت الماميو
إن شاء الله حديث أن تلمامة يردمي أما هو حسن أما هو صحيح وحو نبغو تلمامة إن من خياركم أحسنكم أخلاقا صحيحين كحديث يالا إن من خياركم حلكي نوحا كم دبا إلهي لي دتك مرك الله ميرو أنت حلك أهي وحويا بالنبي يقول يا أحسنكم أخلاقا وأنت دقن كودو في عيني وحاول التقانين حديث ك40 كاينو كودا دغنو دور صحابي النبي كو يداهدين او سنه او سنه او سنه روايه ابو ذر كنت الله 40 كم حي شيغيسا اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفرسو وحلت المام الهي سيدو لا دقم لها الهي سبحانه وتعالى كدور سنارتي سي غضبكي سي عرضي ساليدو تقوى لك عليه هدي بقفو كارد عنا وناك كدبقي وناك توبت باوقوه روان هدي كلنا أعمال صالح وبرسة واحد سمايسي كدب محل يري وخالق الناس حديث كانوا فيرسو إلهي ما أرنن وخالق صفوة المؤمنين لما أرنن وخالق المؤمنين تتكبر باتشيره إن مركو ودات كي أنت واحترام يلا تشوجنا إن أخلاق في عنا عمد مركو وطجنا أهون نحيني نبي الله محمد وحلي وخالق الناس ضد الناس ويريد عام كاي قال يا مسلم يا منافق يا عدو اللي بكتشرته ضد كواحد كل دقن تابع ليلي هذا ما هم مسلمين تا وضد كوردن قفك مسلم كاهي صاحة الجهاد دو تاجي يسيبه ورقمه يسوق أخلاق دي سولية لكن صاحات الدعوة هي صاحات كاتشار كلا ودا يدك ودا النولي هي قال يا مسلم بلا ودا تشوقه إلى مدينة قال يا مسلم بوا تشوقه مشركين با تشوقتي يهود با تشوقتي مسلمين با تشوقي عد ولا بوا دقري هذا النبي يقول حلي وخالق الناس بخلق حسن ضدك واحد كل دقنته وردتك واحد قلبي كوتشي ما أوجا إلهي ما رميسنا يتوحيد سحان هايستا كاسي أدوك وكوبيه عيد كله وجي ما شرته أدقي ربي قابو يدين الحياة دتك وحي قرانا يا ساد ولا دقنته دتك وحي قرانا يا واكا أخلاق دا أما دتك الدين توسو تشيدي أما وناقا وسو تشيدي أما فردن أو كدركن وحي لو يري وحن كسو كوبي مركا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كور رميسا أخلاقي وناقد آد بي أترى بدين إن بدن بانا كل قتين كتبت الآخرية لكن أرجع عن ربنا ندكوات كيان وحويان هذا نفط تببرتانا ويتببرمي هذا معلومات كقرصتانا معلومات إنجيجن وقلف سنة عندنا إذا كقادن دونين وبيدن أورورين دونتان إلهينا النبي يسيو حكولي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك أداد مد إنجنت هايو قلف سن وأفضك ولو أضحق وضه لانفضوا من حولك با إلهي وكات جيا إذن بلشدة وحيسكو هيا وردقا وناقا واحد دين تكف أفتانا وردقا وناقاسي واحد ضد نمضى كمال كيدنا وردقا وناقا والسلام عليكم ورحمة الله